الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan rabaa walaalaha Soomaali Bantu meel meeshay joogan inaan wax yar iftiimiyo taariikhda uu leeyahay Dr. Umar inuu Birkaan Diinle marxuumka Allah u naxariisto sida caawa aan dareemayno tacsiya inoo taalo. Marka waxaan rabaa waxyaabaha oo ninka haliyeyga ama jareer weyne ka soo jeedo taariikhdiisa oo loo baahan yahay nin kastana inuu jareer ah inuu xifdiyo barto. nin kasta wuxuu ka yaqaan sababtoo ah bir subaxdii waxa laga yaabaa adigoo ooynayo oo tacsiyeynayo markii lagu arko nin lama gool leh oo tinjaleec in isku dhaho ninkaas muxuu ahaa. horta ugu horeyntii galabta anoo magaalada joogo Mombasa downtown ka anoo joogo horta text message tacsiyada liigu soo diray kadib markaan daba galay magaalada Mombasa nasiib wanaag Dr. Umar Enow waa degan yahay magaaladan guriga ku leeyahay walaalkiis asiga iska bihiin oo la yiraahdo Said Ali Abdulqaadir Enow Birkaan Diinle waa jooga had lafteeda magaalada Mombasa ku sugan yahay waan is aragnay tacsiyada iyo taariikhda asiga xoogaa ii bidhaamiyay asii laftigiisa uu xanuunsanaya shalay isbitaalka laga saaray Said Ali Professor Umar Enow ninkan caanka ah arkaysiin oo idinka dhashay horta magaciisa waxa la yiraahdaa Dr. Abdulqaadir Enow Birkaan Diinle la lahaa. waxaan diidanahay subaxdii inay VOA-da iyo Universal ka dhageysatin taariikhdiisa taasoo aan filayo inay idinka filan tahay in aan xoogaa idinka taabto. wixii kale oo inta dheer professorka walaalihiisa joogo Maxamed joogo Said Ali joogo conductor idin siinaya hadii markaa u baahan inay wax taariikh ka qorto walow oo laga mudan yahay caawa taariikhdan inaan sheego laakiin nasiib wanaag xoogaa waxaan dareemayaa dadka inaysan saa ugu baraarugsaneenin. Dr. Abdulqaadir maxalla Dr. Umar Enow Birkaan Diinle waa nin haliyey ka dhashay beelaha Soomaali Bantu wuxuuna ku dhashay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose laakiin asal ahaan waxay ka soo jeedaan reerkooda reer Enow Birkaan Diinle gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaaladiisa Jowhar ay ka soo jeedaan. Umar Enow abiisa oo la yiraahdo Enow Birkaan Diinle wuxuu ku dhashay magaalada Jowhar halkaas reerkii ay ka soo guureen oo Afgooy u soo wareegeen halkaas ay ku dhasheen Umar iyo walaalihiisa. run ahaantii Umar waxbarashadiisa wuxuu ku soo qaatay magaalada Muqdisho sida ay taariikhda qorayso professorku waa tiiba Talyaani wuxuu dhigan jiray iskuulka Gomanstriga ee Talyaaniga ona duwe triye Gomanstriga iskuulka la yiraahdo Gardinam Masai ninkii ka saayo run ahaantii waa tiiba Talyaanidii hore. Umar takhasuskiisa wuxuu noqday inuu ku soo baxo naqshadeynta guryaha waxa la yiraahdaa architect. Umar wuxuu kororsaday aqoontiisa wuxuu helay minxo waxbarasho oo dibadeed heer wuxuu gaaray Umar inuu barto ku dhawaad 8 luqadood. run ahaantii marxuumka caawa geeridiisa Allah u naxariisto ugu dambeyntii hadda wuxuu ku dhintay Talyaaniga Itaaliya ku dhintay laakiin Umar bil ka hor nasiib wanaag wuxuu ku xanuunsanaa magaalada tan Mombasa ee dalka Kenya. magaalada laga qaaday asigoo xanuunsan kaliyaha iyo wadnaha calooshii barartay luuhii barareen. waxaa magaalada maxay Dubai ee dalka Imaaraadka ka yimid walaalkiisa Maxamed Enow Birkaan Diinle oo xanuunkiisa dartiis markuu zaa'iday xanuunkiisa ugu yimid magaalada Mombasa kadibna diyaarad ugu qaaday halkan. walaalkiis Maxamed wuxuu la tagay takhtar ku yaalo Dubai
halkaasoo caruurtiisa degan yihiin marxuumka dhintay. marxuumka wuxuu dhalay ilaa iyo 5 caruur ah, waxayna ku nool yihiin 5 caruur Dubai, laakiin asalkood waxay haystaan dhalasho Canadian ah, walow sanadihii dambe ku dhawaad muddo dhowr iyo 10 sano asiga uusan Canada ku laawanin hawlo shaqo awgeeda. marxuumka markii Mombasa laga qaaday oo la geeyay Dubai muddo 20 casho 15 casho wuxuu ku jiray isbitaal Dubai ah. xaaladiisa markii ay serious noqotay halkaas laga qaaday, waxaa loo gudbiyay Torino oo Italy ku taalo, halkaas dhakhaatiir khaas ah uu ku lahaa. marxuumka xanuunkii markuu ku sii zaa'iday, walow wararka qaar ay sheegayaan dhowr maalin markuu Italy joogay uu soo yar bogsooday, lugiis ku socday, kadibna haddana xaaladii serious noqotay, reerkiisa xataa ay yimaadeen Talyaaniga. halkaas wuxuu ugu jiray muddo lagu qiyaaso bil iyo xoogaa. marxuumku wuxuu dhintay saakidan maanta oo ay taariikhda tahay 1 bishii 12aad dhamaadka sanadka 2016. si hore aan soo sheegnay, marxuumku wuxuu lahaa 3 xaas ah, laakiin hal xaas ayaa waxay u dhashay ilaa iyo 5 caruur ah. marxuumka nin aqoon-yahan uu ahaa, runtii markaan leenahay waa halgamaa oo qoomiyadda Soomaali Bantu ka soo jeedo. marxuumka wuxuu u soo qabtay beesha Jareerweyne ama guud ahaan Soomaaliya. marxuumka waa laga yaqaanaa, wuxuu ugu jiraa professorada ugu cadcad ee farkutiriska ah ee dalka Soomaaliya uu leeyahay, dadka ugu horeeya ku jira. nin aqoontiisa oo la tilmaami karo ma aheenin, aqoon aan caadi ahayn marxuumka lahaa. marxuumka haddii aan wax ka taabto aqoontiisa, wuxuu ka mid ahaa dadka dastuurka hadda Soomaaliya u yaalo markuu weli gacantiisa ku soo wareegin dawladda Soomaaliya, dadkii wax ka soo dejiyay asiga iyo khubaro cadaan ah. professorku uma shaqeey jirin hay'ado hoose sida UN-da, maxay yeelay hay'adahan khaaska ah oo Afrika ka shaqeeya uma shaqeey jirin. wuxuu ahaa dadka hay'adaha adduunka kor ka haga oo shuruucda u dejiya, oo aqoontiisa aqoon aan caadi ahayn ay gaalada xataa la yaabeen. cadaanku la shaqeyn jiray marxuumka, wayna ka dambeeyeen cadaanka. hadda waxaa la ii sheegay taariikhdiisa marxuumka inuu gacanta ku hayay khabriga qoraalka Soomaaliya. markii asiga dastuurka soo qoro ama khabriga qoraalka soo dhameeyo, khubro Soomaaliya ama khubro cadaan lagu soo wareejinayo, ay arkayaan, ay jikin gareynayaan. ama laakiin dastuurka Soomaaliya asalkiisa waxa iska leh professor Umar Enow Birkaan Diinle. nin ma aha taariikhdiisa lagu soo koobi karo daqiiqado kooban. professorka 2008 oo shaqadii uu hayay adduunka uu ka fadhiistay. professorka waxyaabaha uu soo qabtay waxaa ka mid ahaa dadka Soomaali Bantuda oo lagu qiyaaso ilaa iyo 2000 maxay ahayd oo 2012 oo qoys oo maanta ku nool dalka Mareykanka. ninkii ka dambeeyay signingiisa ama saxiixiisa oo lagu qaaday. professorka waxa badan oo maanta aska tagay oo lagu soo xasuusan karo waxay tahay waxyaabaha asiga uu dadkiisa u qabtay, gumaysiga iyo naclada lagu hayay dadkiisu had iyo jeer ka hadli jiray. professorka howl badan hadda khabi u ahaa oo asiga ku tal jiray inuu dadkiisa u hirgeliyo. professorka runtii ma ka tagin dad sidiisoo kale mateli kara. runtii ma noqonin nin ka taga taariikhdiisa dadkiisa ugu taga, taariikhdiisa wuu la dhintay. markaan bulshada Soomaali Bantu meel kastoo caawa ay ku nool yihiin way dareemi karaan mugdiga oo soo wajahday. professorka markii aad xoogaasatid dadka asiga si fiican u yaqaano, Jareer iyo Jaleecba dadka Soomaaliyeed
runtii waxay ka sheegaan waxyaabo aad u macmacaan sida Facebook-yada ku aragteen nin kaftan badan oo ahaa nin qosol badan oo ahaa nin macaruudu ahaa nin wuxuu ahaa diintiisa bulshada asigu ku dhex jiro gaalada cadaanka dhexdooda diintiisa ka sheega islaamnimadiisa iyo Soomaali waxa yihiin magaca jareer weyne ama magac Soomaali Bantu ninkii ka dhex sheego ahaa intaas kun cadaan ah meel university intii la soo yimid walaalaha taariikhdan ma dhameystirna waxaan ugu talagalay intay suuxdii universal ama VOA ay ka sugi lahaayeen dadka beelaha Soomaali Bantu inay ku intifaacaan inta yaro taariikhda am professorka eheladiisa iyo qaraabadiisa aan ka soo guuriyay wixii inta dheeraad ah oo taariikhdiisa ah waa la heli karaa dadka aqoon-yahanada oo beelaha Soomaali Bantu waxaan dhihi lahaa oo macallimiinta ah oo maxay ahaday jaamiciyiinta ah inay professorka ka diyaariyaan buugaag iyo taariikh oo beeshu ay leedahay intii wali Soomaalida kale ay ku degdegin ayna sameeyeen wayna sameyn doonaan marka walaalaha waxaan leeyahay taariikhdaas yar oo kooban waa laga mudan yahay dad professorka iga yaqaana nin dayar ba ahaa professorka nin 70 jir ahaa geerida had ku geeriyooday 22 jir la sheegaya marka insha Allah professorka Allah u naxariisto meel alla meeshuu joogan Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabrigiisa ha u waasiyo aan leenahay meel alla meesha joogtiin professorka ha loo duceeyo qabrigiisa Ilaahay ha u waasiyo Ilaahay su'aasha Allah u saqiro Ilaahay kitaabkiisa midig Allah ka siiyo Ilaahay ku hoodka ka waraabay Allah ku daro Allah afiyo dambigiisa anagana gadaashiisa Ilaahay man fidneeyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن محمد موسى عمر أبو حمد الله مقالة مومباسا